kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimiga badan halkan waa raadiyo iyo TV-ga caalamiga hami xaruntiisa magaalada Beledweyne kuna soo dhawaada qodobada warkayga kuwa ugu doorkaroon Somaliland oo go'aan cusub ka soo saartay xayiraadii ay hore u soo rogtay Turkiga oo war ka soo saaray isniidaamintii ka dhacday saldhigooda magaalada Muqdisho Sacuudiga oo burburiyay diirada iyo gantaalo ay Xuutiyiinta Yemen ku rideen Riyadh iyo doorasho ku celis ah oo ka bilaabatay dalka Malawi qodobadaasi hadba qodobadii inagu soo kordho oo fitan gordho u diyaar garooba marka la isku soo noqdo wacan maalinimadu waa Arbaco taariikhdu ku beegan tahay 24 bisha 6 sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilownay Somaliland oo go'aan cusub ka soo saartay xayiraadihii ay hore u soo rogtay Somaliland ayaa maanta soo saartay go'aamo lagu laalayo dhammaan xayiraadihii ay guddiga ka hortagga iyo u diyaargarowga cudurka COVID-19 ay hore u soo saareen kuwaasi oo lagu dhaqmayay muddooyinkii ugu dambeeyay Somaliland ayaa si cad ah ugu dhawaaqday inay gebi ahaanba qaaday xayiraadaha oo ay ka mid ahaayeen duulimaadyada oo muddo badan hakad ku jiray sababo la xiriira isku socod la'aanta uu sababay xanuunka coronavirus sida uu ka dhawaajiyay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay fasaxeen in sidoodii lagu soo celiyo waxbarashada ciyaaraha dhalinyarada iyo kulimada hoteelada iyo qodobo kale go'aankan ka soo baxay xukuumadda Somaliland ee lagu qaadayo xayiraadihii ka dhashay cudurka coronavirus ayaa dhaqan galaya 30 bishan June sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici dhanka kale Turkiga oo war ka soo saaray ismiidaamintii ka dhacday saldhigooda Muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa war ka soo saartay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay afaafka hore ee xerada tababarka ciidamada Soomaaliya ee Turkisom qoraal lagu baahiyay bogga wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa ugu horeyn lagu cambaareeyay qaraxaasi ka dhacay xarunta tababarka ciidamada Turkiga ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sidoo kale qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa tacsiil loogu diray qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku dhintay qaraxaasi bal markana dibadda Sacuudiga oo burburiyay diyaarado iyo gantaalo ay Xuutiyiinta Yemen ku weerareen Riyadh dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay burburiyeen diyaarado nooca meelaha fog laga hagaa iyo gantaalo ururka Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ay ku soo rideen magaalada caasimadda u ah Sacuudiga ee Riyadh afhayeen u hadlay ciidamada Sacuudiga oo la yiraahdo Turki al-Maliki ayaa sheegay in ciidamada difaaca cirka ay hawada ku burburiyeen ilaa iyo 8 diyaaradood oo nooca droonka loo yaqaan iyadoo gantaalo ka samaysan plastic ah oo ay dalkaasi ku rideen maleeshiyaadka Xuutiyiinta gantaalkan ayaa ku socday magaalada caasimadda ee Riyadh sida uu sheegay afhayeenkani ayaa sheegay in diyaaradaha ay ka kaceen garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Sanca oo Xuutiyiinta ayaa inta badani ka taliyaan ugu dambeystii doorasho ku celis ah oo ka bilaabatay dalka Malawi dadka dalka Malawi ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta iyadoo dooranaya madaxweyne dalku yeesho kadib markii lagu murmay doorashadii sanadkii hore dalkaasi ka dhacday madaxweynaha talada haya Peter Mutharika oo doonaya in dib loo soo doorto ayaa musharaxiinta ka mid ah waxaana aad ula tartamaya hogaamiyaha mucaaradka ee la yiraahdo Lazarus Chakwera caqabadaha ugu weyn ee haysta guddiga doorashooyinka ayaa ah dadka dalkaasi ku nool oo ku kala qaybsan doorashadani ku celiska waxaana dalkaasi intiisa badan ka socda dibadbaxyo rabshado wata oo madaxweynaha talada haya lagu diidan yahay in doorashadan lagu celiyo waxaa amray maxkamadda dastuuriga ee dalka Malawi bishii Febraayo kadib markii la ogaaday in wax isdabamarin ah ay dhacday doorashadii hore bishii la soo dhaafay guddiga doorashada Malawi ayaa iscasilay kadib markii cadaadisku ku batay sida uu sheegay musharaxii guuleysta waxaa hor yaalla caqabado ay ka mid yihiin wax ka qabashada faqriga iyo shaqo la'aanta oo dalka Malawi aad ugu badan watahay saaxiibada aynu jecel nahay inta ayaan ku soo afmeeraynaa warkii oo aad ka daawanayseen raadiyo iyo TV-ga caalamiga hami xaruntiisa magaalada Beledweyne warsoo jeediyuhu anigu Ibrahim Dimuni tan iyo warkaan midlacayna